Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada qiso aan ku eegi doono rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Qiso dhex martay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo nin reer baadiya. Maalin nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo xaaladda dadka eegaya iyo waxa ay ku hawlan yihiin fiirfiirinaya ayuu maqlay nin reer baadiya oo leh yaa kariim yaa kariim. Rasuulku wuxuu ku dhahay yaa kariim ayuu isna ugu celiyey. Reer baadiyihiisna wuxuu ku celiyey yaa kariim. Rasuulka ayaa mar kale yidhi yaa kariim. Reer baadiyihii inta uu fiiriyey ayuu ku yidhi ninkaagan wejiga furan ee qaabka qurxan inaan reer baadiye ahay darteed maad iigu jeesjeesaysaa. Ilaahay baan ku dhaartee wejigaaga furan iyo qaabkaaga toosan ayaan kugu dhaafayaa, ma ahane nebiga ayaan kaaga dacwoon lahaa. Rasuulka intuu dhoola cadeeyey ayuu yidhi walaal rasuulkaaga ma taqaanaa? Wuxuu ninkii ku jawaabay maya, laakiin waan aaminsanahay, mana arag, waan rumeeyey, mana la kulmin. Rasuulka ayaa yidhi ogow inaan ahay rasuulkaaga adduunka iyo shaaficiga ama shafiicaaga aakhiro. ninkii wuxuu soo cararay dhankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markiiba wuu jilba joogsaday, iskuna dayay inuu gacanta ka dhunkado nebiga. Wuxuu rasuulku ku yidhi haygu samayn sida boqorada Ruum iyo cajamta ay samayn jireen ee gacmaha looga dhunkan jiray. Isla markiiba Jibriil ayaa soo degay oo rasuulka ku yidhi salaamu calaykum yaa Muxamed. Nebiga ayaa isna ugu jawaabay wacalaykum assalaam. Markaa Jibriil ayaa yidhi rabbigaagu wuxuu ku leeyahay ku dheh kan kula joogay yuusan damcin deeqdeenna, waan xisaabinaynaa maalinta qiyaamee. Reer baadiyihii oo fariinta gartay wuxuu yidhi ilaahay ma xisaabinayaa rasuulkaygow? Dabadeedna nebi maxamed ayaa ugu jawaabay haa insha allah. Ninkii wuxuu ku yidhi wallaahi hadduu i xisaabiyo anigana waan xisaabinayaa allah. Rasuulkii ayaa yaabay oo yidhi walaal maxaad rabbigaa ku xisaabinaysaa? Ninkii baa yidhi hadduu dembigayga igu xisaabiyo waxaan ku xisaabinayaa dembi dhaafkiisa, hadduu igu xisaabiyo bakhiilnimadayda waxaan ku xisaabinayaa deeqsinimadiisa, hadduu igu xisaabiyo tabardarradeeda waxaan ku xisaabinayaa awooddiisa. Rasuulkii wuu ooyey ilaa ay ilintu garhkiisa dhaaftay ama qoysay. Jibriil ayaa soo degay mar kale oo yidhi rasuulkii allow rabbigaaga wuxuu ku leeyahay oohinta jooji. Waxa oohinta ku mashquulay malaa'igta carshiga xambaarsan ee tasbiixdooda. Midka kaa oohiyey ku dheh yuusan ma xisaabinaynee wuxuu noqonayaa rafiiqaaga jannada. Daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qisadaan ku eegaynay ninkii reer baadiye ahaa iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhex martay qisadii cajiibka ahayd.